waxaa jira laba nooc oo lamaanayaasha ka mid ah kuwa ku wada nool xaalad ay ku qasabtay sida inay caruur wada leeyihiin oo aynan dooneynin inay kala tagaan balse aan sidaasi uga faraxsanayn guurkooda iyo waliba kuwa si farxad leh iyo damaashaad ku wada nool. Channelka Hargal TV ayaa waxa uu idiin soo gudbin doonaa 5 calaamadood oo lagu garto lamaanaha isjecel ee farxadda ku nool. qodobka koowaad ayaa waxa uu noqonayaa waxay wadaagaan xiisaha. lamaanaha isjecel ee ku nool guurka farxadda leh waxay leeyihiin waxyaabo ay xiiseeyaan, waxayna isku raacaan goobaha ay xiiseeyaan oo waxaa la arkaa iyagoo si wadajir ah u sameynayo waxyaabo xiiso leh. qodobka labaad, hab ayay isa siiyaan. marka uu istaabto jirka lamaanaha waxay abuureysaa jacayl iyo rabitaan. lamaanaha farxadda ku nool ayaa ah kuwa maalin kasta hab isa siiya. 3 waa kuwa is aaminsan oo is cafiya. lamaanaha ku waara farxadda waxaa calaamadahooda ka mid ah in ay yihiin kuwa ay ka dhaxayso aaminaad oo markii uu mid ka maqan yahay guriga uusan jirin shaki iyo dabagal. sidoo kale waa kuwa is cafiya markii uu qalad ka dhaco mid ka mid ah oo dhinaca wanaagsan wax ka eega. qodobka afaraad, waxay yiraahdaan waan ku jeclahay si joogto ah. marka aad lamaanahaaga ku dhahdo waan ku jeclahay waxay siyaadinaysaa kalsooni, khaasatan marka shaqada u baxayso. waxaa wanaagsan inaad lamaanahaada ku tiraahdo waan ku jeclahay waliba adigoo aad u dhoola cadeynaya. qodobka 5aad ee ah midka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay xiriir joogto ah ayay leeyihiin. lamaanaha isjecel ayaa ah kuwa iska warqaba oo si joogto ah ula socda xaaladooda. tani micnaheedu ma ahan in aad lamaanahaaga ku wareeriso telefoon iyo wixii la mid ah, balse waa in ay jirto xiriir si lamaanahaaga uu u dareemo kalsooni. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan daawade. haddii aad ku cusub tahay channelka Hargal TV ka mid noqo saaxiibada inagu xiran oo subscribe saar channelka lana sii wadaag asxaabtaada kugu qaaliga.